وأنت ودوين حبيبي لك اسمي مدارك إني سووا دينو سمي بعد التوجيه لبيه 12 كيلومتر ودان كان سي كودبور كيلومترada shaq wala garanayay waxa laaliyo wax dhisay anigu ma arag bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo magacayga waxa la yiraahdaa Farxaan Umar Cabdilaahi waxaan ka mid ahay dhalinyarada degmada 26 Juun gaar ahaan boqolyo ka taka waxa ii weydiisay maanta inuu soo bandhigay wax qabadkii Maayir Qiro ama ayaan anigu waxaan leeyahay Maayirka daanta ku kooban daliil xooga ma siinayo ma sii dhaliilayo laakiinse wax qabadkiisa ayaa wax qabadku ku faanayo waad aragtaa magaalada meesha dhex taagan waa xaq waa boqolyo ka takii maayirka maanta daba dhigtay nin shiciba oo hadda ka hor maanta ka hor meeshan aan taaganahay uu ka hadlay ninka waxa la yiraahdaa aakhiro maxkamadda daba galay waa citizen muwaadin isagoo ah dalka ninka maayir maanta maxkamad nin daba dhigta uu hooyadaybu wax ka sheegay war boqol baa anaga waxna laga sheegaayo hablaha ayaga wax laga sheega ma kuwaaba ka qaalisantay isbeeta dandam ma iyaga ka qaalisan ku wiil war waxa weeyaan anigu waxaan ka mid ahay dawladda waxaan ahay nin muwaadin oo qarankiisa difaacay jiidan ka yimid maanta ma xilni direyski laakiinse maayiro waxaan ku leeyahay war heedha wax qabatay ma jirtee maanta waxaad ka baxsanaysaa meediada iska wadaaya your enemy is the first enemy your media mafad shalayna waad ku faanayso meel walba waad daba istaagaysaa oo meediada daba istaagayso waxaad maanta maxaad uga baqaysaa meediada ina wax lagu weydiiyo sababta uga baqaysid maxay tahay saxaafadda waxa weeyaan de waa xogtaada la helay xogtaada ayaa la helay what you haddaan soo koobo mooga wax kuma yaalo xaafadda 26 Juun ama degmada Ibrahim Koodbuur dhamaan you must file it already what filed garowday wax qabad muuqdo wadooyin aad samaysay ma jirto xaafadiinaad wax u dhistay xaafadiinaad wax u qabatay waxa weeyaan maanta su'aalaha meesha yaala waxa weeyaan in la moogow you get waxay gaaladu tiraahaa waxa muuqda ayaa wax laga qabtay wax ku muuqda ma jiro dhiirtiga wadada dhexdeeda waxaad qabatay ma jirto waxaan la iska dhig xilkaaga taas aakhirana waa nin xanuunsanaya waa mental he have to wuxuu haystaa waraaqiisi healthiga dib ugu noqon retain that waad ku ceeboobi doontaa maayro waad ku ceeboobi doontaa horta anigu markaan aragtideeda cabiro maayir mooga wuxuu sheegay sax baan u arkaa hargeysana waxaan u arkaa maayirkii ugu horeeyay ee ugu wax qabadka badnaa inuu yahay maayir Cabdikariin Axmed Mooge waxaan u arkaa dhammaan cid maayirka xaqxaganaysa inay tahay ciddii danaha gaarka ah dawladda hoose ku qabtay ama maayir hore ha siiya ama cid hore ha siiya dadkii danta guud iyo wixii la wada lahaa boobi jiray uma maanta maayirka xaqxaganaya waxaan u arkaa in muxuu ahaayay shaqada uu hayay ilaa imika maayir Cabdikariin Axmed Mooge ay tahay mid uu hiilinay Hargeysa waxaan u arkaa anigu de wax wax qabada ma arkiba waxa tira 12 mitir uu Koodbuur ku soo qoray heerade 12 kilomitir wadaan kale say Koodbuur kilomitrada shaq wala garanayay 1 mitir iyo 30 mitir heerade anaga wadooyin aan nooga dhigin maayir mana baahni wadooyin 30 mitir wadooyinka ay wada arkay waa intaas oo kilomitir boqolyo ka tuku kawdhe damaayir soo dhaaf degmada Qacalibaax waxa u dhistay degmada Qacalibaax oo dhan sideed wado ku soo qoray maanta sideed wado ma isku geeyay dadka sideed wado baa lagu yiri sideed wadooyin waaweyn ba moodayaan moogti sideed wado ma aha wata kuweydiga hormarta oo 100 mitir oo 100 mitir wadada kuweydiga hormarta iyo tadaami oo 40 mitir maxaan noo dhistay maayiraan aragnay wadooyinka ay waa sida cashuur bixiya leedin 1 kilomitir ma dhisin maayir waxaan ku leenahay mid labaad dhibaatooyinka jira maayir xagan cadays badan baa saartaysan ogna degmada Qacalibaax iyo Koodbuur iyo 26 Juun maayir waxaan ku leenahay soo dhaaf degmadaada oo mid kale anaga meel ciidan nooran kaalay oo magaalada saayide su'aal nagu weydiiyay 100 su'aalood baan haynaaye maayir hal mid iga soo jawaab aniga wadada ma martay wadada hormarta wadada labaad ee magaalada dhex marta inta la dhisay madgarasa waxa la dhisay inta hormarta maartay xiriirtaafiga maartay ilaa kaalinta faraska inta yar kaliya laga qurxiyo wadada labaad oo dhan wadada labaad ee dhex martay ilaa iyo xagan maartay caanaha riyaha ilaa iyo jamca weyn maxaa loo dhisi waayay waxa la xidhay wadadii maartay marmar dul dhigay maxaad marmar u dul dhigtay tan aad wax uga beertay maayir ya
dadka macaqliyadaad ka haysata mise waalid dadkani yaa nala xisaabta maayro noo kaalay annaga waxaan doonaynaa inaad dadkaaga qanci annaga saldhigaana keen saldhigu waxaygu nagu xidhay saldhigu yaa naguma xidhaye dadka soo dhaaf maayo intaas waxaan u arkaa inay tahay indhasarcaad iyo qiiro dadka lagu jeedinayo wax allaaliyo wuxuu dhisay anagu maana arag isla xisaabta wax la yidhaahna ma jirin sidii waddanka ay ka jirto xasuulaan ama magarasa nabadgeliyaan oo la jooga muqdisho oo lagu jiro xeladii xalane ayuu wuxuu galay xeladii booliska uu dadka igu weydiiyo si aan su'aal loo weydiin oo aan loola hadal kaadhar baa lagu bixinayay waxa weeye dadka in yaroo gaara buu ugu yeedhay allahumma salli calaa kaadhar kana in gaara la siiyey saxaafad gaar uu yeedhay su'aal laguma weydiinayn wax allaaliyo wax ka jira ma jiraan isla xisaabtan iyo wax la soo bandhigay midna ma jiraan 26 juun waxa weeyaan maayir mooye de waxaasoo dhalinyara dooratay maayirkii ugu codka badnaa waa 26 juun waxa weeyaan de in dadka qanciya loo baahan yahay maayirkii dadka intaasoo dhalinyara dooratay weeyaan markii uu musharax ahaa dhalinyartii halkan Starbucks ugu imanayaan ahayn waxa weeyaan sidii loo arkay awalba in imanka loo arkaa qurux badan de marka anigu de ma jeclayn uu taliska ciidanka maxay la igula xisaabtamo inuu de meelihii de maxay laga doortay lagu xisaabtamo ayaan jeclaanu laakiin ma jeclayn in taliska uu yiraahdo de igu kaalay la igula xisaabtamo marka maayir waxa la si dhalinyartii ku dooratay waa tan 26 juun ninkii ugu codka badnaa lahayd iyo Hargeysaba de codkaaga ha muuqdo dadkaaga kala qancin ma leeyahay cashuurta ay bixiyaan iyo wax qabadka de waa in la isu miisaamaa boqol goor buu ka marqaati kacay inay waxa weeyaan in badan baa ayaa la sheegay inay ugu cashuur badan tahay 26 juun iyo gacan libaax iyo koodbuur iyo gacma dheere waxa uu qabtay iyo marka la soo eego iyo waxa weeyaan iyo cashuurta xaafadu bixisay boqolkiiba 10 ka noqonaysa baan ku leeyahay anigu marka waxa laga doonayaa sidii uu maalintiiba u lahaa waxa weeyaan Hargeysa uu kala abtirin maayo in aan uu kala abtirinin oo waxa weeyaan uu wadooyinka wada baaba ee mid samaysan lahayn bal imka wadada xiraawr marka laga bilaabo ilaa waxa weeyaan laga bilaabo imka idaacada albaabkeeda laga bilaabo ilaa Mansoor waa baaba ishaara kuma xidhna ma samaysna te uu taniyo Hargeysa cagaariyo uu eeg wuxuu Hargeysa kala qaybin maayo maxaa kala qaybiyo hadda midna uu cagaariyay kan waa baabe maxaa ka dhigay waxa weeyaan waxa la doonayaa inuu cadaalad dadka u sameeyo oo soo loo kala cashuur badan uu dadka wax ugu qabto uu dadka dhex yimaado oo shalay markuu lahaa waxa weeyaan waxaan idin sameeynaya maartay cadaalad baan idin sameeynaya qabyaalad idin sameyn maayo maanta cadow buu noo yaqaan anaga iska daa wuxuu noo sameeyay cadow buu noo yaqaanaba marka waxa weeyaan anigu waxba oran maayo laakiin dadkan baan leeyahay war tashada dintiina deedinku raaca oo xildhibaanada doorateen u yeedha waa arkaysan suuqiina magaaladiina say tahay la xisaabtama cashuurtiin halay ku dhacdo ogaada dad noqda baan leeyahay wax jira noqda anigu wasalaam calaykum anagu horta hadaanu reer 26 juun nahay waxaan u qabnaa wax qabad iyo hadalkiisa wadaay waxaan u qabnaa in dawladda hoose cashuurteeda ay ku qayshayba maalin walba halka ma lagu fadhiyo dawladda hoose hadaanu reer boqoliyo ka takanahay maalin walba nala oran maayo anagoo baabuurteedii iyo adduunkayga halka ku jajaban yahay cashuurteedii lagu qeylay wax qabad baa la soo bandhigay yeeli mayno halka ka dhageysan mayno dawladda hoose aan ugu tagay waanu soo qaraacnaa wallahi dawladda hoose dhigad baanu ka saarnaa hadii 2015 iyo 12 maayro cusub halka laga sameeyay oo foojiriya maayro sax oo xaq ku yimid oo cadaalad ku yimid baanu anagu hadaanu reer juun nahay iyo hadaanu reer koodbuur nahay halkan ka sameeysan doonaa hadhow toolayaan lagu wada hadlin noo kale maayir moogo waanu weynayay waa la doogayay la dacroon baan leenahay amba on xoolaad suuqaye keen amba anagu wax qabad baan idin qabanay halka adeer iyana loola soo istaag baan leenahay wassalaamu calaykum maayir waxaan ku leenahay maayir intaad afar qof oo reerkiina aad ku shirtay halka taliska bilayska ayaa tiri wax qabad baan wax qabtay yaad wax u qabatay tolkaaba wax u qabatay ciidagaliya habariyoonis baad soo urursatay meesha iyo TikTok riski oo dhabad noo soo urursatay degmooyinkayga saddexdeeda degmo waa saddexda ugu cashuurta badan leh wadooyinkayga wadii ka arkaya way wada jajabeen waxba maad qaban maayir mooga soodigii kabarada jecla maxaad shacabkaaga uga dhuumanaysa kol hadaanu kugu xareynay maanta taliskii bilayska annaga intaas noo sharafa nafil caaridkii hadaan la gashay maanta taliskii bilayska wallahi maanta waa noo gul kaamana daba harayno cashuurtayada meesha aad geysay haddaad Abdiraxmaan Cira aad ku dhisto doorashada aad ku soo saartay wad noo sheegi karaysaa haddaad daantiina ku qurxisay wad noo sheegi karaysaa laakiin maanta inaad shacabkaagi afar qof oo huhaalayaal intaad soo urursatay iyo kuwii annaga dacaamka noo fidhiyay annaga aan waxba noo qaban intaad soo urursatay baad tiri waxbaan qabtay war qiirada annaga naga jilimaysid markii horena qiira ayaan anagu kugu dooranay qiiradu way soo dhamaatay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi maayir moogow waad soo dhaafi weeday xarumahaagiye
toos waxaan kuugu imanaa dawladda hoose annagaa toos kuula soo baxayna haddaad oo waa diiday inaad nagula xisaabtanto kolba ballan been inaad noo qabanaysay afartii reerkaaga waa kuwa halkaa ku shiraya war waxaan ku leenahay annagu dawladda hoose ayaan kuugu imanna mana joojinayno ilaa intaanu helayno shacabkaygu helayaan xuquuqdiisii oo saddexdeeda degmo wadooyinka loo dhisayo ma aamusayno dadkayga waxaan ku leenahay maayir moogow ama bilayska taliska bilayska dabadaada geli ama dawladda hoose geliyo waanu kuugu imananaa xafiiskaaga dawladda hoose waad arkaysaan siday tahay waxa weeyaan meeshan tuug baa isku rursatay walaa xildhibaanadeenna iyo waxaan hodhanina gebigooduba inay moogay kabaha u qaadaan sidanna xisaabtan ma aha inuu maanta saldhig ciidan intuu isku soo ururiyo uu afar inanoo reerkooda tiktokara ah yidhaa halkaa sacabka ituma waa qiiradii uunbuu weli inagu wadaa marka waxa weeyaan waa inaynu xisaabtanno xisaabtan dhaba inagoo oo waxaan ku idhi bulshada dhan ee xaafadaha ugu badan baynunay magaalada Hargeysa dee inuu sidan eegno oo maalinba mid layloo soo diro oo helo dacaamka fadhiya ceeb bay inagu tahay waxa weeyaan waxaan xaq baynu ka hadlaynaa kama hadlayno wax riwaayada marka dee waxa weeyaan in badan baynu hadalay waar waxayna ficil aynu bedelayno lana hay anu saasaan leeyahay waa leexa shidan ma maqli jirtay ciyaalka yarar baa inta leexa ciida loo sameeyo lagu leexaysiyaa qofka leexada sameeya ayaa lacagta qaata soo maaha bal haddaba ka warrama siyaasiyiinteenu inta leexada ku lulo ayagu haddana iyagu lacagta qaataan yaa waa leexa shidan waa sheeri wari hadba kiisa bacaguranaya shil anu intaas ku soo koobaya wax kale oo dhaafaya inta ma jirto qalad baan u arkaa maayir mooga annaga waxba nooma qaban maayir mooga xire booliis buu ka soo qaata tigidhada hoolkii booliiskana isku ururiya maayir mooga reerku xaafadoodu yahay maayir annaga nooma